السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركو ورئيس وحام هادس كلا الله سبحانه وتعالى وحان دونيا إنان كهالله سيدي اللوغو هرتقي كرا حانونك عادة وحان ربا إنان كهالله وحيابها السببو على مداها اللوغو قرتو سيدا ugu اللوغو هرتقي كرا cuntooyinka u fiican qofka markii xaaladani uu isku arko italooyin muhiima oo anfici kara qof walba oo xaaladani isku arka xanuunkan yimaada xilliga caadada bahda caafimaadka waxay u yaqaanaan dysmenorrhea xanuunkani waxa laga dareemaa qaybaha hoose ee caloosha waxaana loo yaqaanaa lower abdominal pain wuxuu ku faafi karaa dhabarka iyo dhinacyada intaba ayuu ku faafi karaa waxaa la socda calaamadaha sida madax xanuun tabardari daal waxaa kaloo la socda lablabo calool fadhi iyo shuban dumarka qaar lagu arko iyo naasaha oo damqada xanuunkani wuxuu la bilowdaa marka ugu horeysa caadada ay ku bilaabanayso gabadha walow dumarka qaar ay isku arkaan maalmo ka hor intaysan caadada u imaanin inta aan u gudbin hababka lagula tacaali karo xanuunkani waxaan doonayaa inaan ka hadlo sidee xanuunkani u yimaadaa sidaan ognahay bil walba waxaa la soo daayaa ugxaanta mid ka mid ayaa la soo daayaa waxaana lagu sii daayaa qaybta tubada loo yaqaano fallopian tube waxayna tagtaa ilmagaleenka markii ay la kulanto xawada aabbaha waxaana qaybta ilmagaleenka loogu sii diyaariyaa meel oo ay si ay ugu hesho nafaqo iyo dhiig intaba laakiin haddii ukuntu ama ugxaantu haddii ay spermada ama minida ee aabbaha aysan la falgelin meeshii loo diyaariyey iyo ugxaanta intaba caadi ahaan ayaa loo soo saaraa marka xanuunkani badanaa wuxuu yimaadaa marka la soo saarayo ayaa murqaha minka waxay sameynayeen wax loo yaqaano contraction oo isku imaanayeen isku imaatinkaasi ayaa waxay sababayeen inay xirmaan xididada dhiigga kadib murqihii waxaa ku yaraanaya oxygenkii sidaas meesha waxaa ka dhalanaya marka in gabadha inay dareento xanuun fara badan inay dareento oo qaybaha hoose caloosha iyo dhabarka meelahaas inay ka dareento waxaa kaloo jiro xilligan xaaladan inta lagu guda jiro waxaa kaloo la soo daaya hormoon loo yaqaano prostaglandin hormoonkani wuxuu sii zaa'idayaa ama uu sababaa in murqaha minka inay isku soo aruuraan oo ay minka ay ku sameeyaan contraction taana waxay zaa'idinaysaa in xididadii inay xirmaan oxygenkiina uu ka go'o murqihii xanuunkiina uu sii ziyaado guud ahaan xanuunkan loo yaqaano dysmenorrhea oo yimaada xilliga caadada waxaa loo qaybiyaa laba primary dysmenorrhea iyo secondary dysmenorrhea primary dysmenorrhea asiga wax halis badan ma lahan oo aad uma darna badanaaba waxaa la arkaa markii murqaha minka ay isku soo aruraan oo ay isku yimaadaan ayaa waxay abuurahiin xanuun fara badan oo waayo waxaa xirmaya xididadii dhiigga siinaya murqihii ayaa xirmaya oxygenkii ayaa ka yaraanaya sidaas ayuu xanuunku ku imaanaya oo hababka hadda aan ugu soo hadalnay waaye ama hormoonka loo yaqaano prostaglandin oo asigana zaa'idiyo isku imaanshaha minka so waa qababka hadda aan ugu soo hadalnay laakiin secondary dysmenorrhea waxaa sababa xanuuno sida xanuun loo yaqaano endometriosis oo ah markii unugyada minka lagu arko meel ka baxsan minka ayaa waxaa loo yaqaana endometriosis asna wuxuu sababaa xanuunka gabdhaha isku arkaan ama dumarka isku arkaan xilliga caadada waxaa kaloo ka mid ah burooyinka ka soo baxa minka oo loo yaqaano fibroids oo iyagana sababo dysmenorrhea sidoo kale waxaa sababa qalab loo yaqaano IUD oo intrauterine device oo ah qalab loogu hortago uurka oo la geliyo minka asna sidoo kale haddii qalabkaasi asigoo minka ku jira gabadha caadada u yimaado wuxuu ku sababi karaa xanuun ayuu ku sababi karaa sidoo kale waxyaabaha keena waxaa ka mid ah caabuqyada galmada la isugu gudbiya sida gonorrhea oo kale waxaa kaloo ka mid ah xanuunka ama loo yaqaano pelvic inflammatory disease asna sidoo kale qayb weyn ayuu ka qaataa xanuunkani inuu yimaado haddii xanuunka uu noqdo ziyaado ama uu aad u bato waxaa looga baahan yahay in gabadhu ay u tagto dhakhtar inay la xiriirto dhakhtarka wuxuu ku diri karaa baaritaanadani mid ka mid ah baarista ugu fiican ee dhakhtarka ama dhaqaatiirta badanaaba ay diraan waa nooca loo yaqaano pelvic ultrasound oo ah waa iskaan la saarayo dhammaan uurku jirtada iyo xubnooyinka taranka gebi ahaan si loo hubiyo cudurrada hadda aan kasoo hadalnay oo sababaya secondary dysmenorrhea keenayay haddii ay jiraan iyo in kale si loo hubiyo haddii ay yihiin waxaan primary dysmenorrhea iyo haddii ay yihiin secondary dysmenorrhea waxaa kaloo dhakhtarku ku diri karaa iskaan kale oo loo yaqaano hysteroscopy waa maxay siyaabaha dabiiciga aad kula tacaali kartid xanuunkani
dumarka markay xanuunkan isku arkaan si ay xanuunka iskaga baabi'iyaan waxay isticmaalaan xanuun baabi'iyaal ama analgesic sida loo yaqaano. xanuun baabi'yaasha ugu badan ay dumarka isticmaalaan waxaa ka mid ah nooca laisku yiraahdo NSAIDs ama non-steroidal anti-inflammatory drugs sida ibuprofen, naproxen, diglofenac iyo paracetamol ayay isticmaalaan. badanaaba daawooyinkani waxay dhaawac u geystaan beerka, kiliyaha iyo caloosha intaba, oo waxay sababaan xanuun nooc loo yaqaano gas ama sidaan u naqaano. waayo daawooyinka sida ibuprofen iyo diglofenac waxay baabi'iyaan xuubka ama lakabka soo daharay qaybta hoose ee caloosha, waxayna abuuraan boog taa oo markii aashitada caloosha ay soo deyso sida hydrochloric acid oo kale oo ay boogtaasi gaarto qofka wuxuu dareemayaa xanuun. waayo aashida waxay damqinaysaa, boogta ay damqinaysaa. qofka markuu cunto uu qaato, cuntadaasi caadis ee meesha ay saartana qofka wuxuu dareemayaa labolabo, bog xanuun ayuu dareemayaa. so marka daawooyinkani waxay keenaan gaaskaas ayay keenaan. so marka si aan uga hortagno dhibaatooyinka daawooyinka ay keenaan iyo xanuunka dumarka ay dareemaan, si aan ula tacaalna intaba, waa inaad isticmaashaa waxyaabo dabiici ah. marka ugu horeysa oo ay caadada ku timaado waa inaad wax ka bedeshaa cuntooyinkaada. ugu horeyn waa inaad joojisaa dhammaan cuntooyinka ay ku badan yihiin dufinka iyo sokorta intaba. waayo dufinka ama fatiska waxaa laga sameeyaa hormoniska loo yaqaano prostaglandin, ka oo aan kusoo sheegnay in uu kordhiyo ama uu zaa'idiyo isku soo aruuridda ama isku imaanshaha murqaha minka, ka oo zaa'idinaya inay xididada ay xirmaan, oxygenkiina murqaha uu ku yaraado, xanuun badanna meesha uu ka dhasho. sidaas darteed markay fatiska oo cuntooyinka fatiska oo la yareeya xilliga caadada iyo sokorta intaba waxay hoos u dhigayeen hormoonka loo yaqaano prostaglandin, gabadhina waxaa ka yaraanayo xanuunkii ayaa ka yaraanaya. sidoo kale waa inaad isticmaashaa cuntooyinka ay ku badan yihiin vitaminska sida vitamin E, vitamin D iyo vitamin B6. sidoo kale waa inaad aad u isticmaashaa fruits vegetables-ka sida mooska, babayga iyo ansalaatada iyo wixii la mid ah. waxyaabaha kale aad muhiimka inaad isticmaashid waxaa ka mid ah malayga nooc loo yaqaano salon. waayo malaygaasi noocaasi waxaa ku jira maado loo yaqaano tryptophan, taa oo yaraysa stresska, walwalka iyo walaaca, waxayna hagaajisaa ama ay qurxisaa qofka moodkiisa ayay qurxisaa. waxyaabaha kale ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in aad badiso ama aad samayso exercise, aalamiito fara badan. waayo aalamiitada qofka waxay siisaa relaxation fara badan ayay siisaa, oo jirkiisa qofkana way kala furtaa oo wuxuu dareemaa faxfax ayuu dareemaa. meeshan dheh oo qaybta hoose uga wac qof walba aad la jeceshahay inuu muuqaalkani kula daawado. wixii su-aal aad qabtid noogu reeb qaybta commentiga, aniga ayaa kaaga soo jawaabi doona hadduu alla idmo. haddii aad jeceshahay inaad ka mid noqoto asxaabteeda sida tooska ugu xiran youtube channelkayga Dr. Jawhari Official, subscribe saar, share dhe oo la wadaag asxaabtaada. intaan muuqaalkan mid lamid aan ka kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo.